السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بان ugu faraxsanahay inaad casharada aad kor ka soo bilowday si fiican u wado. Waxaan rajeynayaa inaad buuggaaga iyo qalinkaaga haysato, notes aad qaadanayso, aad maaragtay wax badan aad faa'iideysatay, wax badan aad baratay ayaan rajeynayaa. Dabcan macalinka mararka qaar wuxuu u baahan yahay wax loo faa'iideeyo. Haddii jirto wax adiga aad mataqaanaa igu dhaanto ama aad jeceshahay inaan ogaado oo aan jeclaan lahay casharada inaan ku soo daro, always emailkayga ayaa mataqaanaa helaysaa igu soo dir hadduu Ilaahay yiraahdo. Videogan waxaan ugu talagalay maadaama casharka Amazon aan gudaha uga dhex jirno wali koorsadana mataqaanaa aan wali maaragtay ku guda jirno hadduu Ilaahay yiraahdo. Tools badan oo Amazon loo isticmaalo ayaa jiro. Markaan waqti badan aan gelinay waxaa noo soo baxday ilaa 25 tools oo Amazon loo isticmaali karo. Hadday noqoto brandingka, hadday noqoto reviewga, hadday noqoto ratingka, hadday noqoto product researchka, hadday noqoto product mataqaanaa choosing productiga, hadday noqoto supplierka, hadday noqoto social mediaha, all kind of tools. 25 tools ayaa isku soo aruurinay oo qaarna ay yihiin bilaash, qaarna ay lacag yihiin, ay kala fiican yihiin, qiimahooda ay kala duwan yihiin. Marka waxay noo soo baxday maadaama toolska ay aad u badan tahay, each one of them haddaan isku dhahno aan soo bandhigno inay mataqaanaa koorsada ay aad u dheeraato oo 200 video 300 video inagu gaarto aan ka cabsanay. Waxaan sameynaynaa insha Allah tacaala toolska hadda u baahan tahay ganacsigaada inaad bilowdo Amazon. Toolskaas ayaan soo bandhigaynaa. Markaan toolsku leeyahay waxaan ka wadaayo kale tusaale kale Amazon revenue calculator oo kale waxa weeye casharada soo socdaan ku qaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Maxay tahay yani waa software bilaash ah oo lagu fiiriyo alaabta maaragtay aad rabto in Amazon ku bilowdo, qiimaha ay joogto iyo alaabta maaragtay Amazon aad ku gaday alaabta ku gaday rabto, qiimaha aad ku soo gadanayso, Amazon feeska ay ka qaadanayaan iyo profitka adiga helayso, faa'iidada helayso. Saddexdaas ayay qabataa la isku barbar dhigaa. Marka softwarekaas oo kale waa software free ah. Shirkadda Amazon ayaa mataqaanaa original inay iska leedahay ayaan filayaa saan akhriyay. Marka saa darteed softwaradaas oo kale oo hadda si aad ganacsigaada u bilowdo oo aad alaabta Amazon u geyso oo aad hawshii aad mataqaanaa u guda gasho, softwarada basic ah ee aad u baahan tahay isku jira kuwa lacagta iyo kuwa mataqaanaa free isku jiro waan ku soo bandhigaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Laakiin tools wax la yiraahdo lagama dhirgo, midba mid kale ka fiican yahay. Marka maalin walbana kuwa cusub soo baxayo, kuwa hore laga tagaya, marka waxba isbedbedelaya mar walba. Marka saa ay tahay ilaa 25 tools ayaan waxaan ka sameyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Announcement video waxaan ugu talagalnay ilaa 25 tools waxaan ka sameyn doonaa koorso gooniya oo la yiraahdo the 25 most Amazon tools that you need. Au baahanta that you want, need ma dhahayo that you want aan leeyahay, au baahan tahay. Yani baahida needka iyo wantiga laba farqi baa u dhaxeeya inta badan. Marka koorsadaas insha Allah tan markaan ka farxalano hadduu Ilaahay yiraahdo ayaan qaybta membership ku soo dareynaa. But here is the good news. Adiga maxaa kaaga baxaya way? Adiga waxaa kaaga baxayo zero as long as member tahay $14.99 kaada bisha aad baxsanayso. Any course oo cusub aan ku soo darno halkan adiga waxa weeye waxay kaaga mid tahay casharadaada ay kaaga mid tahay lacag kale oo dheeraad oo gooni ah ka bixinaysa malaha. Markaan koorsadan dhameeyna hadduu Ilaahay yiraahdo toolska aad u baahan tahay aan soo bandhigno oo hadda si aad ganacsigaada u bilowdo saan hore u sheegayba, then koorso kale oo ka hormarisa dadka kale oo hore kaaga hormarisa oo ku siisa informationka saxda ee u baahan tahay, productiga hadda rabto inaad ogaato, brand registryga qaabka u sameynayso, qaabka shaqaale u hire gareysanayso, qaabka mataqaanaa trademark iyo patentka alaabta u fiirinayso. toolskaas oo kuwa social media u isticmaalayso, kuwa automated oo mataqaanaa si automatically kuwa wax kugu post gareynayaan. All these tools aan soo aruurinay, mid walbana waqti baan gelinay, waan study gareynay. Insha Allah tacaala marka waxaan ka sameyn doonaa dhowr video oo toolskan si u shaqeeyaan iyo ma aragtay qaabka ula xiriiriso. Marka hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah koorsadaas indhaha ku hay la soco. Markaan tan ka farxalano ayaan mataqaanaa iyadana bilaabayna sahar u sheegnay. Waxa kale oo iyadana mataqaanaa muhiim ah oo aad mataqaanaa ogtahay aan rabaa inaan bar labaad aan ku xasuusiyo oo hadda ka horna laga yaabo videoyada hore inaan uga hadlay. Haddii aad Amazon talada aniga aan ku sii qaadanayso oo ah inaad hoos ka bilowdo oo kor aado, haddii aad talada qaadanayso hadduu Ilaahay yiraahdo subhanahu wa ta'ala, then uma baahnid inaad toolska lacagta ah aad mataqaanaa lacag geliso. Tusaale kale qof baa asagoo aan product dooranin wali ama productiga aan wali helin ama wali researchka productiga ku jiro ayuu wuxuu furanayaa Amazon account, kharash baa ku socdo. That's not good. Qof baa wuxuu sameynayaa Jungle Scout ayuu mataqaanaa soo furanayaa. Jungle Scout waa software midka ugu raqiisan baa $60 $70 bishii.
kuwa mataqaanaa kale dad baa isku dardarso wax isku gato yes waa software fiican waa software aniga aan isticmaalay waa software aan ka faa'iiday weeyaan laakiin ma u baahan tahay way questionka haddii hal product aad launch garaynayso hasha product uma baahnid inaad software $70 bishii kaaga bixiso ama software kaaga bixiso intaasoo lacag inaad mataqaanaa aad adiga aad wax ku gadato aad soo gadato uma baahnid no waxaa lacagtaada focuska saaraysaa inaad hoos ka bilowdo hal product geliso softwarada bilaashkan aad ku bilowdo hadhowna businesskaada markaa 2-3 product 4 product aad gaarsiiso oo aad aragto lacagna Amazon ka sameynayso dan tooliskan aan ka hadli doono investment ku sameyso now casharadan waxaan ku bari doonaa qaabka adoo aan tools u baahnayn Amazon u raan gareyn karto oo manual ah iyo toolska freega qaabka uga faa'iideysan karto iyo kuwa lacagta waan ku tuseynaa marka insha Allah ta'ala saas way haduu la yiraahdo dhan walba ka fiirinaa koorsada qofka jeebka wixii dhan isku soo duubeynaa recommendation keenana waan siinayna mar walba sidaa darteed waxaan ka rajeynayaa haduu la yiraahdo inaad casharadan si fiican u dhuuxdo si fiican ula socoto waayo marka adiga ganacsigaada Amazon aad successful ku noqoto aniga farxad weyn bay ii tahay oo waxaan leeyahay walaal Soomaaliyeed oo halka joogo ayaan mataqaanaa maanta alxamdulillah gurigiisa joogo shaqeysanayo aniga mataqaanaa aan sabab u noqday saasaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh